Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabteena youtube-ka ku xiran baarka 252 waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Haddaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ay kusoo gaaraan muuqaaladan soo socda. Muuqaalkan sheer dhaha mahadsanidin. Soo dhawaada saaxiibayaal. Aabaha dhalay Leo Messi ayaa jooga gudaha England si Manchester City ula xaajoodo heshiis 2 sano ah oo wiilkiisa ugu biiraya kadib markii Leo uu sheegay inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta Barcelona, waxaana sidaas daawacay dasan. Koox kasta oo doonayso inay la seexato Messi ayay tahay inay bixiso mushaarka 90 milyan oo pound ee uu sanadkii guud ahaan u qaato. Waa kooxdii rabta in Leo Messi ay qaadato ama la seexato waxay bixinaysaa 90 milyan oo pound. Tababaraha cusub Barcelona Ronald Koeman ayaa isniintii taleefan kula hadlay waryahanka xulka Uruguay iyo kooxda kubadda cagta Barcelona Luis Suarez oo 33 sano jir ah, isagoo u sheegay inuu koox cusub u raadsado, waxaana sidaas daawacay Mail. Leo Messi ayaa ka qaybgeli doona tababarka kooxda Barcelona maalinta Isniinta soo socota, isagoo loo midoobi doono ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Barcelona sida Antoine Griezmann, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, waxaana sidaas qortay Sports ka soo baxda wadanka Isbaanishka. Ugu dambeyntii, kooxda Barcelona ayaa haatan la xiriiray xiddigan kooxda Lyon Moussa Dembele ayagoo doonayaan inay ka dhigaan beddelka Luis Suarez, waxaana sidaas qortay Sports. Guud iyo gunaanadkii ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal. Muuqaalkii maanta waxaan kaga hadlaynaa wararka suuqa xanta suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta Barcelona. Aragtidaada waad kasoo dhiibi kartaa, waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.